doorasho ayaan u soconnaa doorashadaasina 5 sanadood bakol jiro joog baleenanay waliga ay allaha noo joog baleenanay hiya hooban ku garab joognaa season moodaa baleen qaar badan oo YouTubers, TikTokers iyo warbaahin kale ah waxay sawirayaan Djibouti sidii dal xasiloon oo horumar leh laakiin maxaa ka jira dhulka hoostiisa ma dabba in shacabka Djibouti ay ku nool yihiin cabsi caburin iyo dulmi saaban hareer joognaa baa ku hiiliyo hol la garab joognaa hareertiisaan joognaa waan garab joognaa meel alla meeshu raali ka yahay waanu raacay idinka leh waxa aad damacsantihiin inaad ku muujisaan maxaa run ah maxaase been ah warbaahinta aad daawanayso ma kuu sheegtaa xaqiiqda maanta waxaan iftiiminaynaa waxa ka socda gudaha Djibouti dal yar laakiin leh sir weyn oo qarsoon runta la qariyay taariikhda si aan u fahamno maanta waa inaan dib ugu noqono shalay sanadkii 1977 Djibouti waxay ka xorowday Faransiiska waxayna noqotay dal madax bannaan madaxweynihii ugu horreeyay wuxuu ahaa Hassan Gowlad Abtidon laakiin 1999 awoodda waxaa la wareegay nin si weyn u beddelay siyaasadda dalka waa Ismail Omar Guelleh tan iyo maalintaas wuxuu talada hayay in ka badan 20 sano doorashooyin waa la qabtaa laakiin mucaarad badan ayaa sheegaya in aysan xor ahayn xaqiiqada la sheegayo warbixino kala duwan ayaa sheegaya in dadka qaar la caburiyo saxaafadda la xakameeyo dadka aan taageersanayn taliska la aamusiyo qof walba ma hadli karo qof walba ma cabiri karo fikirkiisa qaar ka mid ah dadka reer Djibouti waxay sheegayaan inay ku nool yihiin cabsi joogto ah warbaahinta iyo runta su'aasha ugu weyn waa warbaahinta maxay ka leedahay qaar badan oo baraha bulshada ah waxay muujiyaan horumar dhismooyin cusub iyo xasilooni laakiin kuwa kale waxay ku doodaan in sawirkaas uu yahay mid la qurxiyay marka yaa run sheegaya falanqayn qoto dheer Djibouti waa dal istiraatiiji ah wuxuu ku yaal marin muhiim ah oo caalamka ah dalal waaweyn ayaa saldhigyo ciidan ku leh taasoo ka dhigaysa mid muhiim ah taas macnaheedu waa xasiloonida dalkaas waa dan caalami ah taasi mararka qaar waxay keentaa in cadaadis gudaha ah la iska indha tiro gunaanad runta dhabta ah mar walba ma fududa in la helo waxa muhiim ah waa in la maqlo codadka shacabka oo la fahmo waxa ay dareemayaan adigu maxaad u aragtaa xaaladda Djibouti haddii aad rabto runta qarsoon iyo falanqayn dhab ah subscribe saar like gare comment-na ku dhiibo aragtidaada annagu waddankeena kolkii aan lanagu aaminay waxa aan isnidhi sidani si noo dhaantay inaan helno nabaddii iyo isfahamkii dadkeenna ka dhaxeeyey marka aan ka gudubno waxaan arkaynaa ama noo muuqda ama aan ka soo jawaabnay barkood bar kalena ay noo dhiman yihiin in aan dhaqaalaheenna aan u adkayno shakhsiyadeenna inaan ku ababinno dad wanaagsan dalkooga jecel daafici kara horumarna u horseedi kara carruurta mustaqbalkooga waddankooga ka dhexelaan waxa uu prefeegu lahaa hadeertoole waxa aan intaa oo lycée baan leenahay waa meel certificatetude-ka uun yani dirqi lagu gaari jiray awal haddii kalena laga bakooni jiray oo magaaladii caasimadda uun la wada tegi jiray halkan inay dadkii carruurtaa dhalayna ay ku istareexayaan ama ku qaboobayaan ama ay ku aaminayaan waddankooga in ay ilmahoogii la socdaan ilaa uu gaadho yani da oo isagu mustaqbalkiisa u dhisan karo kolkaa inay garab joogaan ayay ayagu jecel yihiin taana inaan fulinay baan u malaynayaa waxa aan leenahay shaqo abuur inaan ka shaqayno ayaan ku jirnaa imika
waxaan ku jirnaa waddankeena waxa macdan jirta inaan la soo baxno waxaan ku jirnaa in aan nolosheena aan xagga guryaha iyo xagga horumarka inaan ka shaqeyno annaga oo isku duuban annaga oo mid ah annaga oo walaal ah annaga oo reer Jabuuti la yiraahdo barnaamijkeeni aan ku soo duubaynay ololaha kampaniga oo EMB-da u khaaska ah oo ay kaga soo bilowday dikhil sidaas ayuu noogu